السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا وعن وناكسن إذا هانتين باخيارته هذا قيمة هي شرفت مدن ومركلية برنامج كني فنك إيه فنانين هذا هن أكلية يدو ستة وسوق للسعودان تيبي عالمي جسومالي دي توبيا برنامج كوحن أنت بدن كفلقينا فنانين تإيه فنك مان تهير كأمريو أنه فنان مركزكم مرتقس لمركزنا إنه كوريسنو سويا الكي تاريخ دي سوغان تيسا تضبطكم وحن برنامج كسجار ومرتقى هذا إسلام مركزنا برنامج كمرتقي لي وفنان كعد كبحسن عبد النور الله حرس ميعاد الله أكبر مقعة هجرو أدبان كاغا محد علينا يا فرصة يا وقت قاعد نصيصي عبد النور فنانين تيهوري والله أفترين شري ميجي جيسو صدحن بالقرانية نعم سومالي دونا انت بدن دي waxay ula hayraha lahays ama bas ay nocaan ku ahayn in la isku aftiriyo laakiin fanka maanta waxa uu maleysay in Cabdi Nuur oo inta badan una naanayso fankiba ka maarmeeyeen bal marka Cabdi Nuur oo su'aalaha maanta aan rabo kulli de mar horan ku fadhiistay oo ka hadalnay sooyaalkaaga taariikheed iyo fankaaga halkaad ka soo bilowday bal marka Cabdi Nuur marka hore soo dhawo aad baad ma santahay haboon markaan ka hadlo fanaanka maanta iyo kii shalay kulli waxway ku kala duwan badan waxna way isaga mid yihiin waxay ku kala duwan yihiin qofku inuu xitaa family-ga uu ka soo jeeday inuu ka tago oo magaca abiyaha uu ka tago fankuna sidiisaba wuxuu ku qurux badan yahay caawa aad yaab tirinaysaa aad baad horta mahadsan tahay qofku markuu aabihii iyo halku ka soo jeeda waa waxaan adduunka loogu noolyahay waa la isdhalayaa marka magaca aabo waa laga marmaan waa kii adiga adduunyada ku keenay waa waalid xaq dhowrkeedu mudan yahay inaan abdi jigjiga inaan la baxo waa la igala wanaagsan yahay laakiin xaga aan ka simanay waxa kamid ah fanaaniin aad u codbacaan baa jira waxaanay ka qabsatay oo kaliya oo anagu de isleeyahay sidaan anagu qabo haddii aan is yeelin magacaagu caan noqon maayo كلمة أو كلية. مركا فنكي بان كمار مين بعد لهذا هنا نستا. يبقى سيدا قبان. صح. لكن وما بان فنكم ما قاعد لبدلو إيوه كرتبة يكون حدا تاي إيوه كلبا طلابة هذا فنيد يصعدها كلبا سيدا يصعد. إيوه كل دقة بدن تبع فنك لو كل هالصعدة. أقول له قاله. أبدا ما هتنتهي. عبد النور هذا اللي أنت أسكسر نقولنا هدي له أوران لها عبد النور واحد كم بده هاي فنانين تيهوري وابري. gacan macaan baad ku jirtay fanaaniintii hadda kuwa dhaxdana waad soo martay kuwa imika taagan laftirkooda kama maqnido waad la janqaaday ma isleedahay fanaaniintu waad ka nasiib badan aad iyo aad baan uga nasiib badanay horta waxaan caawa halkan ka xusayaa fanaaniintii Soomaaliyeed ee anigu dee aan ka sii joogay badidoodii way naga hoosiyaan oo akhri jireen sax ilaahay iyaga iyo wuxuu madani maxamed aban naxariis jinaa ka waraabiyo dee nasiib badidana waad arkaysaa oo labadeenaba laba goor ku raalnay sideedabana waxaan anigu wax laga gaboobaa waa maskaxda haboonay maskaxda ayaa laga gaboobaa laakiin haddaad adigu 15 jir iska dhigto dee ilaahina ku aqbali karaa marka anigu dhalinta aad baan u jecelahay nin hadiya jeer la socodkooda jecelna waanahay inay wax soo baxaan wax naga dambeeyaan oo taariikh aadana waan jecelahay laakiin shalay maanta sida u jiraan fanaaniintu shalay uma jiraan fanaaniintu waa tiro koob ah marka waxa leedahay aad baan fanaaniin aad u cod macaan baa jira marba haddii aad ka sheekayso fankii Soomaaliyeed heerka uu soo maray su'aal baan kaaga ku laabay wadiga sheegay oo fanaaniintii aad la kacday maanta waxaad leedahay adduunku waxa ku nool wayarkii haddii dib lagu celin lahaa ama sadeedaada la yareyn lahaa fursadaha aad isleedahay dhalinyarnimo u baahneed maxaa kamid ah dee horta hadiiba marayso maanta waan taaganahay dib isku celina dee la isku celinaya maanta ma taalo laakiin haddii la celin lahaa dariiqyo badan oo hadda ay soo maray inaan ka leexdaa laga yaabi lahaa oo ah inuu dee fanku markaan anagu horeen joognay waxaan u haystay in la necab yahay laakiin haddaan maanta soo bilaabi lahaa fankayna ummaddu jeceshahay baan ka soo bilaabi lahaa hay oo aad loo jecel yahay laakiin dadku oon aqoon u lahayn fanka ayaan anigu soo baxay aad baad u mahadsan tahay kulli su'aalaha barnaamijkan aad martida u tahay ee fanka iyo fanaaniinta su'aalo badan oo fankaaga ku salaysan baynu ku haynaa balse intaanaan gelin qaybo kamid ah suugaantaadii caawa waxaan u ballan qaadayaa daawadayaasha aan soo fadhino in dadkii hore
kuwii dambe iyo kuwa haatan taaganba waa cabdinuur heesiisii hore waxbaan idinka xasuusin doonaa kuwii dhexe iyo weliba kuwa haatan taagan ee markaasi dhalinyarada la jaan qaadaya intaba waxaan leeyahay waa idinku raali gelin doonaa hees waxaa jirta inuu ku daafurina barnaamijka mushxaradda baa la yidhahdaa waxaan u gartay mar haddaan mushxarad maqlayda waa hees qoys iyo lamaanayaasha markaasi ka hadlaysa bal heestaasi iyo falanqayn inaad naga siiso heestu waxay ahayd 76 ayaad qaaday waxaa ila qaadaysay faduun ducaale suldaan sax waxay ku jirtay riwaayad sax waxa midhaheeda curiye oo lahaa allah u naxariistay xasan cilmi waa abwaaninteeda waaweyn ee Jabuuti ka mid ah lixankii miisiga waxa saaray oo marka hore uu sameeyey cabdiraxmaan cali xirsi miisigan caawa ay ku tumanteen ku dhageysanayna سعيد إبراهيم أو أستراليا كنا بالبلدي كن يلحدي لك صوتوبي. يوروبيان كالندركا. أمريكا أستراليا كصوتوبي. بالمركا مدام أو عبد النور مشوا فديو أدو فعنا لهاي إن قرام يجي يقع يجي ندين حسوسنا كمان كيدين قرانو. مالين قاري يلان دونتا أو أن ندينكم مرتقاد دونه. بل عد كاجي معانا. موسيقى يوحنا هالكايسكت. بل عد كي عبد النور يواي نحسوسته. هذا waxaan ku weydiiyay habeen ku soo noqday heeska oo la bilaabo waxaan u maleynayaa anigu waxyaalaha hadda soo kordhay ayaa ka mid tahay bal codkaaga ay maqashii kolka aan ku maqashiyo inuu kayga isyeeshaa haboonte hadii siyeelan waayaan waa kolka waa inaan iska diidaba inaan codkaygu maqashiyo adi markaa ma isleedahay hadda codkaagan caadiga iyo kan kale ee soo mara aaladahan dii casriga weysleey in lay gartuun baa qasab ah hay waayo de kama dheereynaya marka hore duubayaba sax anu cabdinuur la yaqaano codkayga de 30 sano ku seeyay kama dheereynayo bira aaladinay ma xukunto hay ee ana xukuma aalada wahaga marka aan ku soo qabto anu taadi ku raacay kuna ma wareere magaceedu noo yimid lagu muriimaada weeyaan maba aroosadii baa leeyahay lagu muriimaada kama gabadha waxay ruwaado dumnad baa lagu nalaw kale helay gabadhiyo wiilka la isku idaarsada laba oday haddaan ka badiyo gabadhaada siinaysaa marka dumnad baan ku yaa lagu kala helay labadeeda gabdhood dad tujaariyo waxna waa la matalay aniga markaa gabadha maan arag dalaysiyo dabrigood waalid baa xaq laha oo gabadha soo deesin jiray wala siin jiray oo loo miidaan yeelay gabadhi waa lagu siiyay lagu gabadha ku joogtay muddo shaqeynay gabadhi aan soo arkanay ninkii baabuurka ii waday ayaan ku yiri balnaagti si aan u helo gabadhan adigu ma ana baabuurka ku waday adu isagii baa tahay asmada ilaa waa isku dhacday waa ruwaad gabadhiina gabadhii guriga ka shaqeynaysay ayay tiri gabadhi odagu dhalay waa adiga marka faduun waa gabadhii guriga ah laakiin tii leysiyay waa ta kale ee guriga ka shaqeynaysa ma sha Allah marka qisadii ma ku timid gabadhani inta taqaanay run bay u haysataa ya inaan de iska jeclay laakiin gadaal baa laga fahmi doonaa inaan labada yaduba isku fikrad ahayn waa hagaag aad baad u mahadsan tahay heestaasi lagu muranya ma ada مشحرة مركز قوس كشكين سنة برنامج كم فنكية فنانين تطبات كان يدافعوا هاي يدا واتن أودا مايسترن داو شواها دلع ماهيقان ومالي وينتي دخلو مشحراديو موسيادا حارب ديغي سيدا دلع ماهيقان ومالي وينتي دخلو مشحراديو موسيادا حارب ديغي ولعبينا قبطو iyo kumurayada wilibina qabato iyo kumurayada wilqadi harkaagiyo geedu
ka muuqda midabkaagu ii noqoy midabkaagu ii noqoy niilaqadii qarkaagiyo geeduhu ka muuqdaan midabkaagu ii noqoy midabkaagu ii noqoy una maan wareere magaceedu noo yimid lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada una maan wareere magaceedu noo yimid lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada mid lagu mitidayo mareegeedii ku xidhay mareegtii buuro mardhofiyo mid lagu mitidayo mareegeedii ku xidhay mareegtii warlaynu mutiyo dhegtu maqashaa mooye mutiyo dhegtu maqashaa mooye reerkay maaraysiyo anigoon midinaha garan muxibadu isaaqday reerkay maaraysiyo anigoon midinaha garan muxibadu isaaqday una maan wareere magaceedu noo yimid lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada una maan wareere magaceedu noo yimid lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada lagu murimaada murimaada وحاجة هستا ساعات كوقني ما حبضن لقوا مرني معلا شيكاد مرن بقى شيء ما عادي قاعد مرن فيها ولا هسوق شيء أنا سوى أنا داوني ما عادي قاعد نسوى شيك بيقلد وحاجة عبد النور سؤال بقى حكته فنانين هذا ما أنت تشوفه الفرصة أي حيستان اللي أوران كرا فنانين تي كهري مين هنا إذا أظن ما دام الوقت حاضر كنت شوفته كوي هرنا لا صوش قيسي حكم كده أدي أبي ونسيب بديهن نقول النسيب بديهن ما أنت فرصة أي حيستان وحكم كده المه عاودش إيه كوين بوده دقي السنة صح ما الله والله قد كرا هدي لهلا طريقيسة runta maanta way ka maal bay ka qabsan karaan laakiin shalay kama na qabsan kareen صح midda badan anagu halganaa soo maray oo gumeysiyaan soo maray oo dalbaan xuraysanayni oo ummad iyo dawlad baan isfahamsiinayni qaybta business ku inaga maqnay laakiin maanta businesskii ugu weynaa fanku ku jira nin walbana uu ka dhaqan karaa oo ka dhisan karaa xagga su'aal ka dhalatay ma isleedahay fanku waqti xaadirka fanaaniinta hadda wuxuu adeegsadaan fursada ganacsi waaba ganacsi baan ku yiri sidoo adduunyada ka ahaa in kastoo adduunyadu naga banto dadkan dadkoodu u fahmeen oo ay u heleen in wax copyright leeyahay oo ay de shirkado ay
iyaga laftigooda ku maalqabsadeen shirkadu way samaynaysaa iyagana waxoodii waa xajisay sidaasina ku qadiya dawladnimo hagaajin karto su-aasha kale xigta waxa weeye waxaa jira fanaaniin badan oo magac leh inta badanna markaasi aanan qaadinba hees ay leeyihiin amaba soo gaara koobiyeynaya heesi hore fanaaniintu lahaayeen bal markaa fanku maadaama aad ahayd fanaan weyn ma ka madnuuc baa in fanaankaa horreeyey heesihiisa aad adiga ku shaqaysato fanaanku horta waa mamnuuc in la qaado heeska sababtoo ah qofku heese ma waayo beri dhaweyd baa waxaa yar maqlayay dhalin badan oo asxaabteeya oo amadda kuwimka u soo kacaya markay album samaynayaan laba heesoo kuwii hore qaraamidii bay yidhaaheen qaraamidu waxa weeye 60kii wixii ku horreeyey heeska maanta aan qaadaya qaraami lama odhan karo waa qaaci mayna waxa weeye waa hees miisiga oo talantaaliya midda labaad daadis kelmadda la yidhaha anigu ma garanayno meela shay ka timid talantaali baa la odhan jiray hadda daadis dee biyaa la daadshaa wasakha waxbaa la marka darandoori unbahay darandooriga ummaddaa micnayn jirta heeska inuu foorjo yahay cashir bayna ahayd dadka wax lagu tusay وهاجك أدبض ما هتصنتهاي فكر كاجا يا ركتي هذا ما دام الفنان وين تهاي إن الفنانين تكاد حلان وحيابا بدن أود حلقة هيدو الهيدو وربحني قص هيدو وحوي هرت مجا شروي يو هيد دي ضد ما يش هيده oo dhaqankay ka mid tahay asuusha loo hadlay ka mid tahay adaabta loo socday suuqay ka mid tahay ixtiraamkay ka mid tahay hidda waa wax dhowrsan marka ruwaad buu ku jiray ruwaadani la yidhaa taariikhda ka xumaatay talaala jacaylka taariikhda ka xumaatay talaala jacaylka ayuu ku jiray 28 kibayd heeskan waxaa hiddii lahaa ibraahim gadle waxaa sameeyey lixinkeeda محمد آدم دوكسي ما استغفر الله وحو سميه عبد الرحمن علي حرس ما شاء الله يا سميه لحن كده مراني برنجر لها رواد ده انت طريق ذاك حماتان طلال جعل كاي لبقى فور دبس كو جعل بين هاي انا يا حبيبي عبد الله ورواد مركا كمثليني ايا هيس كو ريين اسكو جعل انغو مركا وان اسكو امانين جعل كيغو halku marayaan ku tilmaameen صح marka caawa xabiibi lama joogto marka qaybtaadi baad qaadaysaa aad baad u mahadsan tahay marka labada kugu yar dare heesaan caawa aan qaadayo waxa isku dubaridkeeda maanta lahaa ninka xirsi la yiraahdo Abdullah ma sha Allah oo aad ugu mahadnaqayo qof aad u qiimo badan aad baan salaamaynaa yaa laba cisho kaga gaarsiinay miisiga iyo codka isku geeyay aad baan u salaamaynaa heestii hidana waa miisigana waxa lahaa Saciid Australia aad baad u mahadsan tahay hidana waa tan iyadna daawasho wacan
sheegno kuwii kala halaabiyo odan aanu sheegno idihiyawogee aan ku huyno caashaqa halkii loogu talagalay aan ku huyno caashaqa halgan caashaqeeni isoo hilowgii kala haadinteeni halgan caashaqeeni isoo hilowgii kala haadinteeni waynagaayirgeline kol haddii haraadkiyo haydaartii laga jiray haraadkiyo haydaartii laga jiray isagoo hilaaco igada ka walaacidi isagoo hilaaco igada ka walaacidi idihiyawogee aan ku huyno caashaqa halkii loogu talagalay aan ku huyno caashaqa waa hagaag heestan markaad qaadaysa qiiradii adduunkaad gashay oo jacayl bilaabmayba waxaabaan ku dhi haye marka ilaa haddu waxaan dareemayaa habeenkii aan qaadayay dareenkii nagu jiray ilaan ummad baad cashir u dhigaysaa waa inaad adigu wax jecel iska dhigtaa oo wixii dareensiisata qofkan kor fadhiya waa hagaag cabdinuur bal fanaan weyn baa tahay intaa oo hees eeda qaadaysay hees weli adiga kugu dhacday ama qiso cabdinuur ka socotay laga curiyey ma jirtaa oo ku gaara maxay noo jireen dee fanaan baaban ahay haye ummadun baan la midnaho jacaylada waan la wadaagnaa haye dookhana kala mid baan nahay dadka haye intan dee ilan waa shaquun bay noqoto anuunbaa masraxan fuulay haye way jirtaayoo timahaldhaalay waa ta iigu jawaab badan soomaali i weydiiso meel kastoo timahaldhaalay nin weyn iyo nin yar walle timahaldhaalay ama taahayo ama taabayoo helay ama taahay abidka abidkaaba taha baan ku dhammaystaa waadna kuma ay jirin sheeko kale ma ahayn jacaylkaygu horreeyey baa gabadha ugu horreysay jeclaaday aan jeclaaday haye marka bahalku horta nimaanu helin inaanu adduun baarid baan qabaa
nin aanu jacayl ku dhicin ama qof gabadha aanu jacayl ku dhicin adduunka waxba kama arag marxaladaha uu leeyahay iyo halka aad marayso adduunkaba waad ka sarraysaa xidigaha socota waayitaankaana kiyarkeena aad yari waaysa gabadha markaad weyday ugu sii darantay baalku xarakaadkiisu dee ma hesha mise marka anigoo ruwaad xafidayna ayaa waxaa dhacday ruwaadii baan maalintii ka yardahay oo dee gabadhii soo yarmaray dabeedna waxay ahayd waa layla yardiro waxay maxaad saacaduna socotaa waxaan ku yidhi ruwaad beenaad dhigi leedi kaygaba kama hadashiine kambeenta maxaad dhigi leedi ilaa aad kayga ka hadashaan dee anigu waana layla wada ogyahay banayntu ogyahay heerka marayo marxaladaada markaa nin abwaano oo allah u naxariistee xasan cumi ayaa ii fiirsaday dabeedna gabadhiibuu ka sameeyey kolkii habeennimadan ka cayun buy warya cabdino maabalqoroob qalinkee buu ka qaado dawaadii ka hadlaydi heeskii buu dhig ruwaadiiba korkan ka xafiday degabigeedii marba haddii heestii gabadhaada heeskii baa lay sameeyey markaa ma heshay mise weli taahi baad ku jirtaa gabadhaasi waa marxalad dheer habeen keliya u baahan tahay inaan ka sheekeeyo jabuuti oo dhanna way ka warhaysaa bal heestii wale timahadaalay ama taabay oo helay ay aad u jeclaysan yihiin timahadaalay ama taabay oo helay ama taaqaya bidkay wahwa waayo waxaadna xasuusisay cabdinuur aad u da'yartay marka ilaahay iyagana garansiyo jacaylku waxaan jeclaan lahaa inuu dadka yar wada galo waayo marxalad ba adduunyaba maad soo maridee aad baad wanaagsan tahay waatan heestaasi wale timahadaalina daawasho wacan
أموي وتابيس فانورن إني إيغادا سودانا تلدبا كمان ترين تيمو خلدالي أما تابيو هلي أما تاقيا بتكي وهاجك أنت هساعدني كأني ما إنه هستن أينو سكولي قيبه جدا بيه برنامج كنا نمرنا شجوا واحد تمت دمات كي سنة كلا بدو كوني يشانية طبعاً ديسمبر دمات كذي هذا نوع حق السجن هاي سنة كلا بدو كوني اللي إحنا بشي أبريل بينكم كده شرنا بالمركها عبد النور ومقالة دي شجوا ده كل يدك كي دجنا يعدي وحبي اسمه دانتين معناتها بليغور إن شجوا ينوع جيجيغا لو بوغي waxaan ugu bogay horta waa dad mabda' kaliya wada leh sax haday dhalin tahay haday oday tahay haday islaan tahay haday madax tahay kelmad aan u bogayna waan ka helo aaba leeyahay yar iyo weyn oo ixtiraamka ugu sareeya sax marka waxaan aad iyo aad ugu sii bogay nimanka leeyahay liyu booliis inkastoo ciidamadu ka wada mid yihiin hadal hayntooda badan oo dadku jecel yihiin liyu booliis waa dadkii wadankan soo halgamay taariikhdooda waan yar tababaray waa dadkii ku curyaamay waa dadkii ku luga beelay siday dalkan u xoreyn lahayn horta intii ka dhuuntaa la naxariisto sax madaxdii ku dhiiratay inay dadkaas sameeyaan aad iyo aad baan u hambalyeynaa fikradan lahayd abuurteeda inay dalkan nabad ku daaqo dadkii ka dambeeyay aad baan u hambalyeynaa dhalintan magaalada Jigjiga joogtana aad iyo aad baan u hambalyeynaa waa dad aaminsan dalkooda iyo ku qanacsan kaliyeelnimada aad ugu qanacsan wiilal iyo gabdhaba aad baan u hambalyeynaa fanaaniinta dalka oo afarta kooxood maca kuwa dawladda hoose shanta kooxood maanta ciidan iska jecel la ma jirto aad baad wada salaamaysaa mid aan soo qaaday shanta koox anshax liyo Elias hormuud qoladan kale konsolka aad iyo aad waxaan u malayn doonaa inay hooyada fanka noqon doonto Jigjiga yaa baan u malaynaya waa dad 354 iyo ilaa 400 wali maanta Soomaaliyeed ay joogto ma jirto kooxaas oo fanaaniin oo abwaalin laho mashaajidista leh marka hees baan damcay inaan ku hambalyeeyo oo boodaniyo booliiskaasi maadaama aan u arkay dadka wadankooda jecel wadankoodii ku soo dhaweynaya dadka xitaa qofka qariibka yimaada soo dhaweynteedana kala kulannay iyaan hees qaadaya layla wadani waxa ka heesta ereyadeeda waxa leh mileeda aniga leh lixinkeedana aniga leh miisiga waxa tumay بلا عثمان يا كفرنا أدينا أدمكاغم حد عيرنا هستا هدية دادوغا دينتا عيدمدا بوليسكا غاركا ليو بوليسكا ميلو باي جوغانا waxaan leeyahay waatan hambalyadii fanaanka weyn Cabdi Nuur Allaale oo isagu barnaamijkan fanka iyo fanaaninta toddobaadkan martii noogu ahaa daawasho wacan بيديني اليوم بوليس بانا خيبشو وطني بيديني اليوم بوليس بانا خيبشو بالله يا داركم راي عينات نبات بوحيو وانا كبري ستوت وداركو صحتها يا داركم راي عينات نبات بوحيو وانا كبري ستوت وداركو صحتها bulshooy ballan bangalo waxaan beelka u xidhnaa
xidhnaay inaan qarankeena bilan udcadka ilaaliyo wixii baan iyo dhibooda inaan beerkow dhigaan bulshooy bunduqow sita bulshooy ballamangalu waxaan baylkow xidhnaay inaan qarankeena bilan udcadka ilaaliyo wixii baan iyo dhibooda inaan beerkow dhigaan bulshooy bunduqow sita waxaan bacadkiiyo hanfiga bulsho u boqoolayeen naftayda u bixinayaan inaan bahal iyo dugaag balaayisida qabtoon cadceeddii soo baxdaba sharcigan ku badbaadiya bulshooy barqa iyo qabiile haduubu meel ka dhaco birmadka aan baaqane waqtiya waaniga bulshooy barqa iyo qabiile haduubu meel ka dhaco birmadka aan baaqane waqtiya waaniga bulshooy barqa iyo qabiile haduubu meel ka dhaco birmadka aan baaqane waqtiya waaniga bulshooy barqa iyo qabiile haduubu meel ka dhaco birmadka aan baaqane waqtiya waaniga haduubu meel ka dhaco birmadka aan baaqane waa hagaag cabdinuur gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena fanka iyo fanaaniinta ee barnaamijku maanta adiga ku marka qaadnay baynu soo gabagabaynaynaa bal fursadaan ku siiyey yaad halkan ka salaami lahayd waxaan salaamayaa shacabkayga aan ka midka ahay inkastoo soomaali u dhexeeyo halka aan ku barbaaray een ka soo baxay een ka bilqaday oo ah jabuuti ummadda reer jabuuti ee rag iyo dumar leh madaxdayda sharafta leh madaxweynaha iyaga dib aan u caleema saarannay ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa khadre maxamuud xayd oo fanka aan maanta ku tallaabsanayno qorshihiisa lahaa labadaasi aad baan ugu mahadnaqayaa waana salaamayaa dhammaan ummaddayda reer jabuuti waxaan kaloo ku xisiinayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoy adduunka ka joogaan waxaan leeyahay jiro oo jooga anu soo noqda kuwayga kelilka 4 kooxood een haddeer magacaabay 5 kooxood maca kuwa dawladda hoose dadaal xoog leh ku jiraan dadaalkoodana waan ku hambalyeynaya aad baad u mahadsan tahay adoo haboonugaasaan ku iloobe allahu akbar haboon ilaahay idankii waxaan rajaynayaa inaan mar saddexaad soo horfadhiisan doono haddii ilaa khaalq raali waxaan aad iyo aad u hambalyanayaa telefishinka ESTV madaxdeeda shaqaalaheedu sida u dhan tahay cameraman hadday tahay technician hadday tahay ilaa gabadha muraadaha masaxda dhammaantood waan hambalyanayaa sababtoo ah kaalinta ugu weyn bay kaga jirtaa kelilka ESTV aad baad u mahadsan tahay guud ahaan akhyaar waxaynu intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii fanka iyo fanaaniinta waxaa marti inoogu ahaa fanaanka codka baxsan ee cabdinuur allaale xirsi meecad inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono waan kaaga mahad celinayaa fursadda iyo waqtigaada siisay aad baad ugu mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa kameramaanka aadka u qiimaha badan aadka u sharafta badan ee barnaamijkan fanka iyo fanaaniinta mar walba ka qayb qaata isku dubardaha guud ee barnaamijkana ah waa maxamed xasan faarax qaybta habayntuna waxa weeyaan maxamed farxaan farsabadu waa axmed mahdi muuse cabdiyare xuseen muuse nadiir bashiir maxamed sidoo kale waxaan mahad celinayaa axmed nuur cabdi abiib oo isaguna barnaamijkan inta badan igala shaqeeya iyo weliba bahda ESTV oo isku duubneedin la inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono amaana allah waxaan kaloo aad u salaamayaa fanaaniinta diasporaga ee hawsha weyn aan halkan ka soo wada galnay weliba iskilaaji iyo reynilka casi iyo axmed weli iyo waxaan ku yidhi diaspora axmed weli maahay waa golo jooge iyo deeqa holan iyo magaran saynim cadareen iyo
adigu koronto adigu nimcayaasiin carraale waaba ruuxayga waaba ruuxayga iyadu waa soo shaqaynay nimca waa ruuxayga inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono amaana